بسم الله الرحمن الرحيم aan wax ka barano weydiimahan kala ah what is a peril and what is a hazard inta aanan eray bixin labadan eray aan ku hormarno inaan wax ka ogaano frequency taa oo ah inta jeer ama meeqa goor ayaa laga yaabaa inuu khasaaro imaado muddo cayiman gudahood tusaale haddii aad bajaaj ku shaqaysatid bishii gudaheeda imise jeer ayaa laga yaabaa in aad shil la kulantid marka waxa ay noqon kartaa in tirada shilka ay badan tahay ama dhexdhexaad tahay ama ay hooseyso aan u soo laabano severity taa oo ah haddii khasaarihii la filayay uu dhaco imise ayay noqonaysaa lacag ahaan tusaale haddii bajaajka ay shil gasho ma waxaa lagu hagaajinayaa $10 mise 50 mise 100 mise ka badan si kale haddaan u dhigno waa xajmiga khasaaraha inta uu la egyahay marka loo fiiriyo lacagta la bixin doono ama lacagta lagu weyn doono haddaan isla fahnay micnaha frequency iyo severity aan u soo laabano qeexidii asaasiga ahayd qaybteeda koowaad ee ah peril haddaba peril waxaa lagu qeexi karaa walxaha keena khasaaraha tusaale shil gaari waxaa sababa isku dhac oo aad ku dhici karto gaari kale geed guri ama shay halka hazard ay tahay walxaha kordhin kara inuu shilkaa dhaco tusaale gaarigaagii ayaa shil la gashay waxaa keenay in aad moobeelkaagii ku mashquushay si kale haddaan u dhigno gaariga marka uu shilka galay waa peril sababta keentay oo ah in aad moobeelkaaga ku mashquushayna waa hazard markaana aan ka hadalno nuucyada kala duwan ee loo qaybiyo hazard waxaana ka mid ah 1 waa physical hazard waa xaalad kordhin karta in tirada dhibka uu dhaco iyo xajmiga khasaaraha in uu kordho tusaale baqaarkaagii ayaa la dhacay haddaba khasaaraha ku gaaray waxaa u sabab ahaa in qufulkii aad ku xirtay baqaarkaaga uu ciladaysnaa xadidda baqaarka waa peril waxaa keenay oo ah qufulka ciladaysanna waa hazard khaasatan physical hazard nuuca labaad waa moral hazard taa oo ah in akhlaaqda ama iimaanka qofka uu hooseeyo ayaa keenta inuu dhibka bato tusaale waxaad leedahay shirkad bixisa caymiska qofka macmiilka ah ayaa laga yaabaa inuu been abuur sameeyo oo shil aanan dhicin dhaho magdhow ha la iga siiyo ama xajmiga khasaaraha uu soo dallacanayo inuu kordhiyo taa ayaa loo yaqaanaa moral hazard halka nuuca saddexaad la yiraahdo attitudinal hazard midaas oo ah in qofka aanu keer siinin inuu ka hortago dhicidda khasaaraha waayo waxa uu ogyahay inuu caymis ku jiro ama qof kale uu lacagtaa bixin doono haddii dhib uu yimaado tusaale waxa aad wadataa gaari leh caymis waxaa laga yaabaa inaad ka tegtid gaarigii oo aadan xirin taa oo keeni karta in gaarigii qof kale uu dhaco ama in uu xado waxaa keenay in habdhaqankaa aad la timaadid ayaa ah inaad ogtahay in shirkadda caymiska ama qofkii kale uu ku siinayo beddel ama magdhow fiiro gooni ah haddii shirkadda caymiska ay caddayn karto in dhibkaa dhacay uu ku yimid dayac dhankaaga ah magdhow xaq uguma lihid mahadsanidin waa inoo markale haddii rabbi idmo